السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada daawadayaal qisadani waa qiso la yaab badan oo waxa laga yaabaa inaadan hore u maqal. waa qisadii nabiyullaahi yuunus ibnu matta calayhi salaam. imtixaan noocee ah ayuu nebi yuunus la kulmay? miyuu ku guulaystay imtixaankii? ugu dambayntiina muxuu la kulmay? su'aalaha iyo kuwo kaleba waxaynu ku jawaabi doonaa muuqaalka dhexdiisa ee la socod wanaagsan. haddii aad ka heshay fiidiyowga fadlan like saar gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub, asxaabtaadana u sheer gareey. taasi waxay inoo tahay dhiirigelin aad nagu dhiirigelinayso in aynu sii wadno muuqaalada noocan oo kale ah. nebi yuunus calayhi salaam waxaa la oran jiray dannuun, oo micnaheedu ay tahay kii u saaxiibka ahaa nimiriga. wuxuu ilaahay u diray nebi yuunus magaalo la oran jiray niinwa oo ku taala dalka ciraaq. waxay ahaayeen dadka magaaladaasi degan kuwo caabuda asnaamta, waxayna dadkaasi tiradooda gaarayeen 100,000 oo qof. nebi yuunus calayhi salaam wuxuu ugu yeeray qoomkiisa inay caabudaan ilaahay, balse nasiib xumo cidna way ajiibi weysay oo gaalnimadoodii ayay ku adkaysteen. nebi yuunus wuxuu ka hanaaqay qoomkiisii sababtoo ah waxay diideen dacwada ilaahay. wuxuu go'aansaday nebi yuunus calayhi salaam inuu iskaga tago qoomkiisa, balse wuxuu ka baxay isagoo ilaahay weli u idmin. wuxuu aaday xagga iyo xeebta, wuxuuna arkay doon ay saaran yihiin dad badan. kadibna dadkii ayuu doontii la koray. markay badda kala bartankeeda gaareen ayaa waxay la kulmeen dabeel xoog badan. doontiina waxay bilowday inay isdhaqdhaqaajiso. dadkii doonta saarnaa waxay ka baqeen inay dhintaan, waxayna bilaabeen inay tuuraan alaabtoodii cusleed si ay u badbaadaan. balse dabeeshii ayaa sii xooganaatay, waxayna go'aansadeen inay doonta ka tuuraan qof ka mida si uu culayska u kala yaraado. waxayna bilaabeen inay qoray tuuraan, balse mar kasta oo la qoray tuuro waxay ku soo aadaysay nebi yuunus calayhi salaam. dadkii saarnaa doonta way diideen inay tuuraan nebi yuunus calayhi salaam, waayo waxay u arkayeen nin wanaagsan oo saalix ah. hase ahaatee wuxuu go'aansaday nebi yuunus calayhi salaam inuu isaga iska tuuro badda si uu u badbaadiyo dadka saaran. ilaahay ayaa wuxuu u soo diray nimiri aad iyo aad u weyn, wuuna liqay, wuxuuna la aaday badda gunteeda. markii nebi yuunus miirka u soo noqday, wuxuu u maleeyey inuu dhintay, wuxuuna arkay jirkiisoo dhaqdhaqaaqaya. markaa ayuu yaqiinsaday inuu nool yahay, arrintaana ay sababteeda ay tahay dembigii uu ilaahay ka galay markuu ka soo baxay qoomkiisa isagoo ilaahay ka idan qaadan. wuxuu guda galay nebi yuunus calayhi salaam inuu ka qoomameeyo dembigii uu ilaahay ka galay, kamana suulin inuu yidhaahdo laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin, oo ay micnaheedu tahay ilaah xaq lagu caabuda ma jiro adiga mooyaane, rabbiyo adaa nasahan, waxaan ka mid ahay daalimiinta. ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuu ka ajiibay nebi yuunus calayhi salaam, wuxuuna amray nimirigii inuu ku tuuro xagga iyo xeebta. nebi yuunus calayhi salaam wuxuu ka soo baxay calooshii nimiriga isagoo qaawan oo bilaa dhar ah, tamar daran oo xoog lahayn. wuxuu ilaahay u abuuray geed la oran jiray yaqtiin. geedka hoostiisa ayuu ku harsaday, miraheedana waxbuu ka cunay. markuu caafimaaday nebi yuunus wuxuu ku laabtay qoomkiisa. wuxuu la kulmay qoomkiisa oo wada islaamay oo rumeeyey
ilaahay iyo maalinta qiyaame kadib markay dareemeen in cadaabka ilaahay uu ku habsan rabo. xadiiskuu warinaya Abu Hurayra radiyallaahu canhu ayna soo saareen Bukhaari iyo Muslim uu dhahaya nebiga xadiis uu micnihiisu uu yahay uma habboona addoon ilaahay abuuray inuu yidhaahdo waxaan ka qayr badanahay Yuunus ibnu Matta. waxaana xadiiska lagu xambaarayaa inuu nebi Yuunus calayhi salaam uu ka fadli badan yahay nebiyo badan, balse uusan ka fadli badneen nebi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee. halkaasina waxaa ku dhammaatay qisadii nebi Yuunus, waxaana ka mida suuradaha uu ilaahay qisadiisa ku sheegay suuratul anbiyaa aayadda 87 iyo aayadda 88. allahu aclam. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.